waxa la sheegaa hadda dhulka galmudug loo bixiyo amba si aan loo bixiyo hadii la yiraahdo asluubta agteeda ya ha dhulkaas yaa la dejiyay yaasa go'aan kala ha siyaasiyiin iska fogfogayayso waan arkay laakiin dukumentiyada kulli waa yaalan arkiifiyada dawladda hoosena waa yaalan soo markaysid hadii la yiraahdo dadka qaarna waa heestaanba soo markay aan ku dhaw dorkii aan ku sheegaba dhulkaas waxa soo sataa xilligii maamulkii iga horeeyay maxamuud axmed nuur tarsan safiirka Soomaaliya hadda ninka Kenya u fadhiya Soomaaliya ya maamulkii iga horeeyay xilligiisa waatii dad qaybtan hadda daray boortiga laga dhisay ee boorka agtiisa idoo leeyahay security issue oo airportka ah dad deganay si cashwaay ay ku deganay in laga dudunshay soo markaysid dadkaas marka laga dudumiyo waa cawdeen waxay aniga dahantiya nagala dudumiyo soo markaysid waxaan rabnaa dawladda dejin inay noo sameeyso ayaan rabnaa guddigay qabsadeen madaxdii ay la kulmeen dabadeed madaxweynaha jamhuuriyadda guddiga saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddigaas waxa gudoomiyay kay cabdikariim xuseen guulid saaxiibkay ya waxa xubin ka ahay tarsan guddigaas waxay soo jeediyeen dhowr qodob meesha waxa ku qoro warqadina way taalaa ay saxiixeen dhowr qodob ay soo jeediyeen waxay soo jeediyeen dadka meeshan laga dudumiyay in dib u dejin loo sameeyo dawladda dhul siiso labo waxay soo jeediyeen dadka waxay isku jiraan dad cuushash iyo yaani ariishman iyo laga dudushay dad sare guriga filooyin laga dudumiyay dadka filooyinka laga dudumiyana in dib u dejinta loogu daro wax cul celin tacwiid magdhow ahaan 50,000 ee dawladda dhex ay siiso lacag magdhow soo markiisid qofkiiba dadka guriyaha waaweyn okay waxay guriba tala ku soo bixiyeen dhulka la dejinayana inuu noqdo dhulka wasaaradda bir mataqaana gaadiidka ilaahdo hadii ilaahay ku ruuyahay oo ku yaalay asluubta ku dhaganahay waa dhulka hadda galmudug loo bixiyay in la siiyo saddexdaas guddigaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda saaray oo cabdikariim xuseen guulid gudoomiye ahay tarsan member ka ahay xildhibaan ay ku jireen ayaa go'aanka soo gaaro soo saxiixa woonu yaala maxay gaareen dadka dib u dejin loo sameeyo labo in meesha galmudug la dejiyo saddex dadka guriyaha waaweyn laga duminaa culcelin in lacag la siiyo dawladda dhaxana ay siiso aniga markaas kadib la ii magacaabay ya go'aanka markay u gudbinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda way iga horeeyay tarsana ku saxiixanaan guri ha hadii waa beenta cidii tiraad warqada way taalaa hadii loo baahdan miidiyaha waa la soo bandhigi karaa laakiin aniga mar rabada mas'uul aan ahay meeshay taal arkiifiye in laga doonto aan ku dhameey marka maxaa dhacay marka madaxweynaha markay u gudbiyeen okay u dhahay man aaminsan shaqo qaldan inay tahay maxaa dhacay marka adaga kiis kale bacdama gal waxaan waqti aan helna moogta okay maxaa dhacay markaan aniga markii la magacaaba 13 February xilligii fulintii aan ku soo aaday marka xilligii fulintii aan ku soo aaday dhulka marka dawladda iska leh dawladana dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo meel for security reason looga barakiciyay qabtay inay dejiso maxaan sameeynaa markaan processkii aan marinay processka marka maxaa bacdama dad guud oo yahay ka horta waa inay wasaaradda la weydiiyo bal inay u baahanta waa weydiinay wasaaradii gaadiidka waa weydiinay wasaaraddu waxay cadeysay hadda inay baahi u qabin dhowrkan 20 sano inay ku shaqaysanin anteenooyina ka taagnaa jira maanta anteenooyinka xilliga meesha ka taagnaayna qalab yar oo elboorka yaalo ayaa kaaga filan waxay dhan wax aan u baahna malahan qoraal document ay soo qoreen wasaaradda in dhulkaas ay ka maarantay madaxweynihii jamhuuriyadda aan u bir mataqaana asna soo qoray noolo oosta ah in dhulkaas dadkaas la dejiyo in dawladda ay ka maarantay isla markaana dadka la dejiyo anigoo maayarkii ahna sabar loogan siiyo dadkii sababkiisa waxa lagu soo diray dad yar xir agoon laga bixiyay taani maayarka caasimadda ahay dhulkan muxuu ahaa sagada 900 oo boos amal u ahay waa hal goof dhulka dhan lagu sheegay sababkiisa 900 oo goof markaan dadkii markii guddiga soo saarteen ayaga gacantoor ku soo qortay guddiga waxaan ku sheegay hal hadoo ka been noqdo mas'uuliyadna qaadanaya dadka meesha laga barakay ayaga soo qortay say u soo qorteena loo siiyay dad kale yaani xir agoon laga barakay 80 qoys amal ahna dhul baa laga siiyay dad ayaga laftirkooda si sharci darro ah meesha hore ugu deganaay iyadoo dawladda leedahay iska qabsadana day ayagana birig ma taqaanaa waxba la yiraahdo way joogaane ya ayagana yaanan la wada dayicin xal soo markaysid daacnaas la soo ayna waxba la siiyay sidaas oo go'aanka guddiga u taagay soo markaysid yaani sidaas ay ku dhamaatay marka aniga maxaan ka ahay maayarka warqada baxshay marka fulin bay ahayd taas intaas ma kaaga dhameeyay oo kaad mar aan mid kale aan kugu daro markaan aad xiriir qaasim ka gudubto sarta hormood ka gudubto dhulka ku dhagana dad badan waxay leeyihiin dhulkaas Mugabe bixid Allah magacay muslim dhulkaas aniga ma bixin dhulkaas iyadana maamulka iga horeeyay ayaa dunshay
weli بالمناسبة ما توان شيء صاحب كي ترسن أسوء إذا عدك كده هاي دول كبابر ما ألا بحي أسجى بحش أسجانا دون شيء أسجانا بحش هذا يبين نقطة ورقدي وكل صحيح وكل بحش ماشي تعالى إذا دول كاسمحوا هاي مركز دول كاسمحوا على رب ولد أوذال اللي هجري دول كانوا دول جوده ما هين تلمينتم دول أبصيبة أو بولد أول اللي هذا أو جورو حسين كل ما أفرح لون عريس مدحوني رسول مدحوني كوين كورسومالية هريريه سكوا جذا منو هاي سو مركز أنا دول كلهم ما يسقي يعني وقلدن قضالة أنا شو بكم اللي ما نبحين سو مركز عدة بحسين مسؤولية در إذا لو يدينا يا ودي أنا ما بحين با أبصيب كان مركز كو هريريه السناي جورو حسين كل ما أفرح بولد أول اللي هجري ضد لحظة ما يقويس عمل أي حلقة من دولة محمد زابر الدجناجرة أو بسيب كده الدجناجرة حوجات ضده هم مركز حلقة بربر كعيان عشوائي هان كل صوب بيرية يرى سوفك يدان كان أياجرة مركز اللي بربرنا يا مركز غيرتها دراي بورتك اللي قدسه يا أيا إلهي كوريا معمول كيو بربرية تاسنا كده من معمول كترسن السجية وحوج عن صدور ورقته كسحة أنا وغلط قلي أو دول أبصيبة أو دون جود هينين أو بربرية وحنا قامية دب هلا وعبر ضدك أنا وحان كلها أو كليئة كنترول فيرم أو معنى هذا تاي قان كي دقي هوري ترسن أو دول كان دب هلا وعبر ضدك اللي قد شويري ولا فلين كرا أن تشتسر أو غربس ما دام أو صغير وحكروا أن كلها هاي ملكي هذا ما سنتها si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta